saaxiibtay waa hooyo 2 cunug leh. Waxay ii sheegaysay in iyada iyo ninkeedu rabaan inay sugaan 2 ilaa 3 sano ka hor inta aynan ilmo kala dhalin, sababtoo ah waxa ay maqleen munaaficooyin ku saabsan kala durkinta carruurta. Waxa ay walwal ka qabtaa hababka kala durkinta carruurta ee kala duwan oo waxa ayna maqlaysay fikrado kala duwan. Waxa ay weydiisay, hababka cusub ee kala durkinta carruurta ammaan miyaa? Weli ilmo ma dhali karaa marka aan joojiyo isticmaalka habka kala durkinta carruurta? Dhakhtar ahaan waxa aan u sheegay in hababka cusub ee ka hortagga uur-qaadida ay si ammaan leh u caawin karaan ninka iyo xaaska. Hababkani waa u ammaan ragga iyo dumarkaba oo umana keenaan cillado carruurta ay dhalaan. Haweeneydu weli carruur way dhali kartaa marka ay joojiso isticmaalka habka kala durkinta carruurta, waayo dhammaan intooda badani hababku waa kuwo ku meel gaar ah oo dibna looga noqon karo. Sheyga kale ee wanaagsan ee ku saabsan hababka kala durkinta carruurta waxa weeye inay jirto dhowr ikhtiyaar oo aad ka kala dooran kartid, kuna xiran waxa ay lamaan ku doorbidaan. Haweeneydu waxa ay awoodi kartaa inay joojiso isticmaalka hab oo isla markaana ku beddesho hab kale oo ka duwan haddii aynan jeclaysan habkaas. Qof kasta oo xiiseynaya inuu isticmaalo hab kala durkin ah waa inuu la hadlaa dhakhtarkooda si loo go'aansado nooca habka kala durkinta carruurta ee iyaga u habboon. Kala durkinta carruurta waxay ku caawintaa hooyooyinka inay xoogooda dib u soo ceshadaan, aabbayaashana u ogolaataa inay waqti dheeraad ah la qaataan carruurtooda. Carruurtuna caawisaa inay si fiican u koraan oo isla markaana bulshada u ogolaataa inay aasaasto qoysas nabad qaba. Ugu dambeyntii, hababka kala durkinta carruurta waa hannaan oo qura, natiijooyinkana Ilaahay ayay gacantiisa ku jirtaa.